waxaa jira hal xaqab oo kala saarta dadka guulaystay dadka guuldareystay haddii aad fahamtana noloshaada oo dhan way isbedeli doontaa. Dadka guulaystay maahan dad aqli badan, dad lacag haysta, dad nasiib badan ee waa dad sameeya hal shay kaasoo ah ficil qaadashada. Ilaa dhammaadka muuqaalka waxaan kugu bari doonaa sida aad noloshaada ugu beddeli lahayd nolol guulaysata. Waxaan kuu sheegayaa sheeko kooban. Waxaa jiray laba nin oo saaxiibo ah oo isku caqli ah, isku fursad ah, isku xirfad ah, laakiin midkood guuldareystay oo soo maray jab badan halka midka kalena wuxuu farta saaraba Ilaahay u fududeeyay, Ilaah barakeeyay. Balse midkood wuxuu sugi jiray waqtigii saxda ah ilaa lagu gaaro waqtigii saxda ah oo qabanaya, halka midka kale uu sugi jirin waqtigii saxda ah uu qaadanayo ficil asagoo aan waxba fahan guud ah ka haysanin. Muuqaalkan kala qaadana ilaa 3 qaybood. Midkood waa ficil qaadashadu waxay ku keentaa fursado. Qofna kuma siiyo fursad, waa inaad adiga abuurataa fursadaas. Waa in waxaad aragtaa dad guulaystay balse maxaad moodaysaa halkaas inay ku gaareen? Waxay ku gaareen tillaabooyinkooda ugu horreeyay noloshooda. Markii Elon Musk uu bilaabayay Tesla, dadku waxay lahayd ma shaqaynayso, laakiin haddii uu sugi lahaa waqtigii saxda ah maanta ma ay jireen. Runtii labaad ah guushu ma timaado markaad sugto, waxay timaadaa markaad bilowdo. Qof walba wuxuu bilaabaa isagoo aan faham guud ah ka haysanin. Ma jiro qof si sax ah u yaqaana bilowga. Waxay bartaan intay ku jiraan janiga hawshaasi. Qaybteena saddexaad ugu dambeysa oo ah wax ka beddel. Haddii aad maanta ficil qaadato, hal sano kadib ka fikirin mustaqbalka, ka fikirin waxaad soo dhaaftay bas. Qoraal ficil aad maanta bilaabayso, ha noqoto xirfad cusub aad maanta baranayso, ha noqoto ganacsi cusub aad maanta bilaabayso, qor kadibna bilow maanta. Hadda wax walba aad maqasho ma shaqayn doona haddii aadan ficil qaadin. Waxaan rabaa maanta inaad go'aan qaadato oo aad bilowdo waxaad doonayso, aad ku haminayso inaad mustaqbalkaaga gaarto. Ma noqonaysaa qof guulaystay ama guuldareystay oo suga mar walba waqtiga saxda ah. Haddii aad rabtaa sii barato siraha guusha iyo nolosha, subscribe garee channelkeena, like saar, comment-na ka soo bixi intaad waqti kusoo gaartay muuqaalkeena. Conclusion-keena, ha sugin waqtigii saxda ah ee hadda bilow, maxaa yeelay haddii aad sugto waqtigii saxda ah kale ayaa kaa hormari doonta.